adigu ciisa wali ma sanad hargeysa shaqo soo doonatay runtii aad baan u naxay oo interviewgii waxaan ka jawaabi lahaa waxaan ka naxay qabiilka ugu horeysiiyay wasiirku aad baan naxay runtii aad baan uga murugooday aad baan uga damqaday marka wasiirka hadalka yidhi waa kuma Dr. Cabdiwali oo wasaaradda jooga wasiirka wasaaradda runtii markaan ku iri wasiir anigu aftibaadii Taiwan ku iri oo Jibril Kor bay dhalay hargeysa intaasan ku soo leekaaday de Djibouti iyo meesha ka sheekeynaysan ma garanay waa taariikhdeeda ugu sheeg waxaan idinku yeeray xog aan maanta doonayay inaan ummadda reer Somaliland aan gaarsiiyo oon baahiyo xogtaas oo ah xilkii aan u hayay Jamhuuriyadda Somaliland wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Jamhuuriyadda Somaliland maanta oo taariikhdu tahay bishii koowaad 7deedii 2024 inaan maanta xilkayga halkaa ku soo koobo haddii la yiraahdo oo iska casilo aan go'aan ku gaaro markay sidaa tahay inaan yiraahdo madaxweyne aanu ma ogoli dadkayguna ma ogola markaa waxaan doonayaa markii aan saa isula fahmaynay aan iskaga yimid aan deedna go'aansaday inaan xilkii ka dago